mahadsanidi ku soo dhawaada wararkaanu idinka hayno bariga Afrika oo idinka imanaya magaalada Nairobi warkan waxa idin la socodsiinaysaa anigoo ah Igla Saalax wararkaanu idinka hayno bariga Afrika waxa kamid ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka hadlay sababta ka dambeysay xildhibaan sabtidii lagu dilay magaalada Nairobi madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyay in laga hortago dilkan oo kale munaasabad lagu xuseeyay maalinta raadiyaha adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi xuskan ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Kenya shakhsi lagu eediyay dilkii xildhibaan George ayaa la soo taagi doonaa maxkamad ku taala magaalada Nairobi madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ka hadlay sababtii ka dambeysay xildhibaanka Beta madaxweynaha ayaa ka dhawaajiyay in laga hortago dilkan oo kale faafaynta qodobkaasina waxay noo hayay wariyaheena Cabdixakiin Siciid madaxweynaha dalka Kenya Mr Uhuru Kenyatta ayaa ka dhawaajiyay sababta loo dilay xildhibaan George Machai oo laga soo dooran jiray deegaanka Kabeta ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ugu horeyn dhamaal tacsiya u diray xildhibaanada baarlamaanka Kenya iyo sidoo kale qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday xildhibaanku madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa dilka xildhibaanka la xiriiriyay ololaha uu ugu jiray la dagaalanka musuqmaasuqa iyo tacadiga madaxweynuhu waxa uu ballan qaaday inay ka go'an tahay dawladdiisa in gacanta lagu dhigo kooxihii ka dameeyay dilkaasi isla markaana sharciga la hor keeno xilli kasta ay qaadato madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay inay dawladdiisa ka go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa isla markaana ay dabar jari doonto madaxweyne Uhuru Kenyatta oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaan dawladda Kenya marnaba aqbali doonin tacadiga iyo musuqmaasuqa tirada yar ee uu sheegay inay weli ka jiraan dalka Kenya xildhibaankani la dilay sabtidii hore oo laga soo dooran jiray deegaanka Kabeta ee dalka Kenya ayaa sabtidii hore lagu toogtay bartamaha magaalada Nairobi waxaana maanta oo Jimco ah lagu aasayaa isla magaalada Nairobi qaar kamid ah xildhibaanada baarlamaanka Kenya oo ka qayb galay aaska xildhibaan George Machai ayaa ka tacsiyay geerida ku timi xildhibaanka waxaana ay ku tilmaameen xildhibaan George Machai shakhsi u dooda xuquuqda dadka Cabdixakiin Siciid Kalsan TV Nairobi Moses Kachon oo kamid ah musharaxiinta u tartamayay countiga Homa Bay kana tirsan xisbiga mucaaradka ee ODM ayaa ku guuleystay xilkaasi musharaxiinta kala duwan ee ku loolamaya doorashada countiga Homa Bay kuwaas oo ka kala socday xisbiyo kala duwan musharaxa ku guuleystay senatarka Homa Bay Moses kuna jira isbahaysiga mucaaradka Code ee hogaamiyo Raila Odinga doorashadan countiga Homa Bay oo ahayd mid ku laabasho iyadoo uu dhawaan geeriyooday senatarkii hore ee countiga Homa Bay ayaa iminkana uu ku guuleystay walaalkii Moses shakhsi lagu eedeeyay dilkii xildhibaan George ayaa la soo taagi doonaa maxkamad ku taala magaalada Nairobi eedeysana lagu tuhunsan yahay dilka xildhibaanka George Machai iyo askariga ilaaladiisa iyo waliba dareewalka gaariga u waday ayaa maanta maxkamad la hor keenaya wasiirka amniga ee dalka Kenya ayaa la xiriiriyay dilka xildhibaanka inay geysteen budhcad maalmo ka hor gaari ku afduubay noociisu yahay Toyota xaafadda kana la qabtay laba dumar oo lagu tuhunsan yahay inay lu kuleeyihiin dilka xildhibaankaasi wasiirka amniga ee dalka Kenya ayaa hadalkan ka sheegay aqalka madaxtooyada ee dalka Kenya isagoo ay ku weheliyaan taliyaha booliska dalka Kenya Samuel Araj iyo agaasimaha laanta dambi baadhista xildhibaanka ayaa sidoo kale la dilay askari ilaaladiisa iyo dareewalka gaariga u waday munaasabad lagu xuseeyay maalinta raadiyaha adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi xuskan ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka suxufiyiinta qurba joogta Soomaaliyeed ee dalka Kenya faafaynta qodobkaasina waxay noo haysaa wariyaheena Farduus Axmed Bedel waxa maanta lagu qabtay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya munaasabad lagu xuseeyay maalinta raadiyaha adduunka oo ku beegan maanta oo kale munaasabadan ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka wariyayaasha qurba joogta ee SHS ee dalka Kenya xalfadan xuska maalinta raadiyaha ayaa waxa ka soo qayb galay guud ahaan saxafiyiinta ka howlgala magaalada Nairobi iyo sidoo kale qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan Nairobi waxa munaasabadan khudbado kala duwan ka soo jeediyay agaasimayaasha warbaahinta Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ugu dambeyntii waxa khudbad ku saabsan maalinta raadiyaha ka soo jeediyay gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee dalka Kenya Maxamed Cismaan New York maalintan oo kale xaflado kala duwan ayaa adduunyada lagu qabtaa sidoo kale waxa laga akhriyaa fariin muhiim ah oo gaaban oo xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon uu bulshada caalamka kula wadaagayo isagoo si kooban uga hadla raadiyaha iyo qiimihiisa
xafladda ugu weyn ee sanadkan waxay ka dhacaysaa Geneva halkaas oo runtii fariintiisana laga akhrin doono munaasabadaas xaflado aad u fara badan oo saacado aad u badan soconaya ayaa lagu xusaa maalinta raadiyaha adduunka 2012 ay ahayd markii ugu horeysay sanad guradiisii koowaad raadiyaha adduunka ee la xuso ururkan wariyaasha qurba-joogta Soomaaliyeed ee SAJASna waxa uu ka mid yahay hay-adihii xusay waana hay-adii Soomaaliyeed ama ururkii Soomaaliyeed ee warbaahin ama saxaafad ay leedahay xusa maalinta raadiyaha adduunka sanadka 2012 waxaana ku xusnay wadankan Kenya gaar ahaan holkaan maanta joogno raadiyuhu faa'iido iyo khasaaro uu leeyahay waxyaabaha lagu dhaliilo waxa kamid ah in qofka dhageysanayo uu mashquulsan yahay ama laga yaabay dad sheekaysanay in raadiyo u daaran yahay Soomaaliya markaan u nimaadno raadiyaha ahmiyad gaar ah ayuu leeyahay sababtoo waxaan lagu tiriyay inaan nahay oral society waa dadka Soomaalida ah akhriska waa ku yar yahay laakiin dhageysiga aad buu ugu badan yahay marka inaga faa'iido gaar ah ayuu inoo leeyahay Firdawsi Axmed Badal Kalsan TV Nairobi waa tahay daawadayaal intaasina waxaa nagaga dhan wararkaan idinka haynay East Africa oo idin la socodsiinaya anigoo ah Igla Saalax haatana waxaad u diyaar garowdaan xubinta ciyaaraha warka Kalsan TV oo idin la socodsiin doona wariyaheena Mawlid Warsame Kulane